kadib markii dhowaan ay kala saxiixdeen heshiisyo taariikhi ah dowladaha Soomaaliya iyo South Africa ayaa waxaa arrintaasi si diiran u soo dhaweeyay qaar ka mid ah jaaliyada Soomaalida ee ku dhaqan South Africa iyagoo sheegay in wax lagu farxo ay tahay in dowladda Soomaaliya ay xiriir diblomaasiyadeed la sameyso dowladda Koonfur Afrika. sidoo kale heshiiskaasi dhexmaray labada dowladood ayaa waxaa soo dhaweeyay ururka saxafiyiinta Soomaalida South Africa ee SOJASA oo bayaan ka soo saaray heshiiskaasi. gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaalida ee South Africa SOJASA Maxamed Muuse Nuur Deeq Darajo oo la hadlayay telefishinka qaranka ayaa sheegay in ay tahay horumar weyn in dowladaha Soomaaliya iyo South Africa xoojiyaan xiriirka labada dal iyadoo taasi noqon doonto mid waxtar u leh Soomaalida ku nool South Africa. sidaad ka warqabtaan maalmihii u dambeysay waxaa jiray heshiisyo cusub ee labada dowladood ay kala saxanayeen dowladda Soomaaliya iyo dowladda South Africa kaasi oo si diblomaasiyadeed kala saxday magaalada Pretoria. heshiiskaasi ayaa dadka South Africa ku dhaqanay aad ugu riyaaqeen soo dhaweeyeen anagoo ah urur saxafiyiin oo dalka Soomaaliya si musaafiris ugu maqan isla markaana ah buundo isku xirta Soomaalida iyo Soomaalida Koonfur Afrika ayaan dhankeena waxaan aad u soo dhaweynaynaa heshiiska ay kala saxdeen dowladda Soomaaliya iyo South Africa. ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika oo marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan SOJASA kana mid ah ururada dalkan ka registreysan oo sida weyn loo tixgeliyo ayaa waxaan soo jeedinay qodobo ah in dowladda Soomaaliya iyo dowladda Koonfur Afrika ay tahay in ay ka foojignaadaan maadaama heshiiskan uu ahaa heshiis in badan la wada sugayay. dhowaan ayay ahayd markii uu booqasho maalmo qaadatay ku joogay dalka Koonfur Afrika wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya isagoo kulamo kala duwan la qaatay dhigiisa dalkani Koonfur Afrika iyo jaaliyada Soomaalida ee magaalada Johannesburg. Cabdulqaadir Axad, telefishinka qaranka, Cape Town, Koonfur Afrika.